kulan wacan daawada meel walbaad caalamka ka joogto kusoo dhawow barnaamijkeena wararka isha sirdoonka qodobada maanta aan ku faaqidi doonano waxaa ka mid ah ciyaarta musaaracada ee sida arxanka daran loo ciyaaro mandhaba mise waa jilin inkastoo ay ka mid tahay ciyaaraha adduunka loogu daawashada badan yahay haddana muddo badan oo ay jirtay weli waxa uu muran ka taagan yahay dhab iyo dheeldheel midka ay yihiin si kastaba ha ahaatee sanadihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxayay xaqiiqada dadka xiiseeya ciyaartaani ay ku ogaanayaan in aanu dagaal run ahayn ee ay tahay bandhig wax kasta sii qorshaysan yihiin Dr. Ashraf Xaafid oo ah tababaraha kooxda musaaracada dalka Masar ayaa mar uu dhowaan u waramay shabakada wararka ee Al Jazeera waxa uu sheegay in dagaalka musaaracada uu yahay kaliya jilis isaga oo sheegay in la soo xulo hadba xubnaha ciyaarta galaya kadibna si fiican loogu tababaro falalka jilista ah ee mid kasta qofka ka soo horjeeda ku samaynayo inta ay ku guda jiraan golaha dagaalka Dr. Ashraf waxa uu aanu tusaale u soo qaatay in haddii aynu yarayno xawaaraha uu ku socdo muuqaalka fiidiyowga ciyaarta laga duubay aanu si fudud u arki karayno in nabarka qofka lagu dhufanaya aanu ahayn run sida oo kalena uu jawaabta uu qofku ka bixinayo nabarka ku dhacay ay ka horeyso intii aanu nabarka ama darbadu jilliinka ay ku dhicinba haddii ay run tahay in nabarkaasi qofka ku dhacaya waxa marar badan ku keeni lahayd gariir maskaxda ah oo qofka ku dhaca waxa arintaasi si fiican u fahmaya xeeldheerayaasha ciyaarta feedka ayaa uu yiri tababare Ashraf oo ah macallinkii Karam Jabir oo ku guuleystay biladii feerka ee ciyaarihii Olombikada sanadihii 2004 oo ka dhacday magaalada Athens ee dalka Greece waxa uu sheegay in ixtiraam la'aanta ay ciyaartoygani u muujiyaan garsoorayaasha iyo carada ay isku abuuraan caadifada ay muujiyaan marka midkood la legdo ee loo tirinayo saddexda in ay waxaasi oo dhami ka mid yihiin arrimo ku talagal ah oo kor loogu qaadayo xiisadda uu daawaduhu u qabo ciyaarta iyo in uu rumaysto waxa dhacaya waxa uu sheegay in muuqaalada ka midka ah ee ciyaartani ee inta badan fashiliya been abuurkeeda soo noqnoqday ay ka mid tahay marka ciyaaryahanku uu dhulka ku dhaco ee kii la dagaalamayay uu la dhaco laad ama hirdi haddii uu mid kii kale si run ahi ugu dhici lahaa uu caqligu garanayo in feeraha ama raqabadu ay jabi lahayd ciyaartan waxaa ka jira ficilo iyo hadallo ku talax tag ah oo loogu talagalay in ay dareenka qofka kiciyaan waxaa ka mid ah marka labada ciyaaryahan saaxiibadood ay soo galaan golaha iyaga oo erayo daandaansi iyo aflagaado ah isweydaarsanayay ama u kala hiilinaya saaxiibadooda kale ciyaartan oo ah tan labaad ee ugu daawashada badan adduunka marka laga yimaado ciyaarta kubadda cagta dhaqaalaha ugu badan waxa ay ka heshaa tikidhada qiimaha sare lagu iibiyo iyo iibka baahinta telefishinada iyo sidoo kale xayeysiinta marka laga yimaado mushaarka wareerka ah ee ay qaataan ciyaaryahanadu waxa u dheer lacago dheeraad ah oo qaarkood laga kireysto marka cid ama dal gaar ah uu doonayo in uu bandhig ciyaareed qabto tusaale ahaan dawladda Sacuudiga oo sanadkii hore dalkeeda markii taariikhda ugu horeysay ku martigelisay ciyaarta musaaracada ah ayaa xidiga ciyaartan ee Ingiriiska u dhashay Tyson Fury waxa ay si gaar ah ugu soo kireysatay 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah si uu maalin kaliya uga qayb galo hal ciyaar oo ka mid ahayd ciyaaraha ka dhacayay dalkaasi Sacuudiga Carabiya Al-Habib Al-Udayr oo ah falanqeeye ka tirsan telefishinka beIN Sports kuna xeel dheer ciyaarta dagaalka ah ee kala duwan ayaa Al Jazeera u sheegay in ciyaarta musaaracada ay 100% been jilis kaliya ay tahay waxa run ahina aanay ku jirin waxa ay ku fiican tahay in loogu yeero masraxiyad ayaa uu yiri Al-Udayr isaga oo intaasi ku daray in ciyaarta ka hor la sii diyaariyo qofka guuleysanaya iyo kan laga guuleysanayaba dharbaaxada lagu dhufanayo iyo sida ay u kala duwanaanayso iyo qaabka guusha
ciyaaryahanka kasta waxaa lagu tababaraa falalka kala duwan ee uu sameynayo iyo sida uu isu ilaalinayo darbada iyo weerarka jilida ah ee kaga imaanaya ciyaaryahanka kale ee ka soo horjeeda. Xudayr waxa uu sheegay in qaaradda dhismaha jireed iyo muraayadda xoogga badan ee ciyaaryahanku ay yihiin waxa lagu soo doorto iyada oo marka dambena lagu tababaro sidii ay u sii xoojin lahaayeen, taas oo farsamo la doonayo in daawadayaasha lagu qanciyo arxan darrada iyo ficilada xoogga badan ee uu ciyaaryahankani ku cayaarayo. Ugu dambeyntii waxa uu Xudayr sheegay in tusaale ugu dhow uu muujinayo sida ay ciyaartani jilid u tahay uu yahay sida ciyaaryahanka nabarada waaweyn lagu dhufanayaa aanu haddana goobta uga tagaynin isaga oo nabaro la taaban karo ka qaba. Waxaa laga yaabaa in dad badan ay isweydiiyaan sababta mararka qaarkood dhiigga ka keenta ciyaaryahanka ama ay dhacdo in qaarkood ay golaha ciyaarta ku dhex dhintaan. Caadi ahaan in ciyaaryahanka aanu nabar ku dhacaynin doodu ma aha. Marar badan waxaa dhaca darbad qaldan ama isagu farsamadiisii isdifaaca qaldantay in ay ku dhacdo, taasina uu keento nabar. Waxaase jira xirmooyin dareere dhiig u eg ah oo garsoore kasta oo ciyaartan dhexdhexaadinaya uu sido, taas oo si uu talagal ah la isla sii og yahay in uu hab xeeladaysan qarsoodi ah ugu dhiibo ciyaaryahanka jilaya in uu nabarku ku dhacay, kadibna uu ciyaaryahankaasi si farsamadeedu sareyso isugu daadinayo walxahaasi dhiigga u eg. Dhinaca dhimashada waa arrin iska caadi ah oo ciyaar la'aan waa ay dhacdaa in qof kedis ah uu dhinto. Waxaa soo raaca in xarakaadka iyo boodboodka xad-dhaafka ah ee uu ciyaaryahanku sameynayo iyo in carada iyo caadifada uu isku abuurayo ay sababaan in wadnuhu si aad ah u shaqeeyo. Waxaa kale oo la og yahay in ciyaaryahanka musaaracadu ay si aad ah u isticmaalaan dawooyinka jirka firfircoonida geliya, taas oo mararka kala duwan talax tag keeni karta in wadnuhu istaago. Ugu dambeyntii u fiirso ciyaaryahan kasta ee musaaracada ka qayb qaadanaya waxaad arkaysaa in uu kor u boodayo ama cagaha dhulka ku dhufanayo marka uu ciyaaryahan kale nabarka ku dhufto, taas oo ah farsamo lagu sameynayo sanqadh uu qofka daawanaya moodayo in ay tahay nabar ku dhacay. Ciyaartabiyaasha dadka daawanaya ciyaarta u xiise geliya ciyaarta ayaa iyaguna ka qayb ah xeeladda. Waxay hoosaasin badan ku sameeyaan farsamo xumooyinka qaar dadka u muujin lahaa in ciyaartani ay tahay mid la jilay. Qaylada, is-xarkajinta iyo buunbuuninta falalka dhacaya ee ay ciyaartabiyaashu sameynayaan ayaana ah arrin qofka caadiga ka mashquulisa in uu arko qaladka yaryar ee ka dhacaya ciyaaryahanada golaha ku jira, oo ay marka horeba adag tahay in la arko qaladaadkaasi masaafada ay goobta ciyaartu ka dhacaysa uu jiro daawadaha awgeed. Daawadayaashu waxay jecel yihiin midka guuleystay ee suunka ama hadiyadda qaaliga ah la siiyo, laakiin xeerarka ciyaareedka musaaracada, mulkiilayaasha iyo tababarayaasha ciyaarta musaaracadu waxa ay jecel yihiin ciyaaryahanka laga adkaaday ee sameeyay farsamada indhasarcaadka ah ee dadka moodsiisay in si xun loo garaacay. Daawaday waxaan filayaa in aad wax badan ka ogaatay ciyaarta musaaracada ee caalamka loogu daawashada badan yahay. Fadlan wixii aragtidaada ah inoogu qor qaybta commentiga.